Qisadan waxay ku dhacday wiil wuxuuna ku jiray waqtiga dhallinyarnimada. Wuxuuna dhahay waxaan arkay gabar aad u qurux badan oo soo jiidasho leh. Waxaan ku arkay suuqa dhexdiisa iyadoo dhex socoto. Waxaan damcay in aan la hadlo, laakiin nasiib darro meel dukaan ah ayay iga gashay. Anigu waan dhaafay. Markaan dib u soo eegay ayaan arkay gabadhii oo gacanta igu baaqayso. Dabcan rabitaan ayay ii muujinaysay, waana u imaaday. Waxay i weydiisay lambarka taleefankayga, aniguna anigoo dhoola caddeynayo faraxsan ayaan waxaan ku siiyay si degdeg ah. Waxayna i soo wacday habeenbarkii. Si wanaagsan ayaan isku baranay oo aan waqti u qaadanay ku sheekaysanay. Waan isbaranay, waxayna ii sheegtay inay tahay garoob oo waqtiga ciilay, balse ah qof shaqaysto oo hanti leh. Waan sheekaysanay, waana isfahnay, waxaana tagi jirnay hoteelada. Kadibna waan isjeclaanay oo waxaan noqonay laba qof oo iska hesha. Waxay gabadha u muuqataa mid dhowrsoon, mana ogol in aan taabto ama gacanta xitaa aan qabsado. Waxaan isku dayi jiray in aan jirkeeda taabto, balse way ii diidi jirtay. Maalin ayay i soo wacday, waxayna igu dhahday niyow waxaan rabaa in aad si degdeg ah iigu imaato. Markaan u imaaday ayay igu dhahday waxaan ku siinayaa tigidh. Waxaan rabaa inaad u duusho waddanka Kenya, gaar ahaan Nairobi, si alaab ganacsi ah aad iga soo rarto. Shirkadda alaabta ii diyaarisay, waxaadna ku degaysaa hotel ku yaalo Nairobi. Kadib waxay ii soo dirtay lambar. Waxay dhahday lambarkaas waa una sheeg ruuxa kaa qabto in aad wakiilkayga tahay oo aad la wareegayso alaabta. Warqaddii wakiilashadana way ii saxiixday. Waxaan dalbaday in aan fasax ka qaato shaqada, waana la ii diiday. Waana isku xanaaqnay booskayga shaqada. Walow mar dambe la ii oggolaaday in la i fasaxo, si degdeg ah ayaan ugu duulay Nairobi. Waxaana degay hoteelkii ahaa oo mid aad u qurux badan ah. Kadib lambarkii ayaan wacay oo ay dhahaysa wac marka aad meesha tagto. Lambarkii markaan wacay ayaa waxaa iga qabatay isla iyadii oo degan qolka aan deganahay midka ku xigo. Kadibna waxay i dhahday ma aanan rabin inaan kuu sheego, balse meeshan aniga ayaa kugu ballamiyay. Kadib qolkii ayay igu soo gashay iyadoo la moodo aroosad. Meeshii ayaana wada seexanay. Tigidhkiina waxay iigu samaysay muddadii aan joogi lahayn oo 3 maalmood ahayd, ayayna nooga dhigtay muddo 7 ah. Waxaana ka soo noqday Nairobi. Maalmo kadib anigoo la socda walaalkayga ayaan galnay shil baabuur. Waxaana si aad ah u dhaawacmay walaalkayga, taas oo keentay in dhiig loo shubo. Waxaan u shubay dhiig. Muddo kadib ayaa dhakhtarkii ii imaaday, waxayna ii soo celiyeen dhiigaygii. Waxaana weydiiyay dhakhtarka walaalkay inuu dhintay iyo in kale, balse waxay ii sheegeen inuu weli nool yahay. Balse waxay ii sheegeen inuusan dhiigayga anfacaynin walaalkayga, sababtoo ah waxaa laga helay fayraska sababa cudurka AIDS-ka. Kadib waxaa igu dhacay inaan dhacay oo aan suuxay. Sidaan u fikirayay waxaan noqday lafo. Waxaan noqday qof nolosha ka rajo dhigay. Waxaan noqday qof isnacay. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa i soo wacday gabadhii igu riday cudurka. Waxayna igu dhahday sidee tahay. Waxaan ku dhahay arrintaas ayaa i qabsatay. Waxaana u sii raaciyay in uu walaalkayga shil galay aniga asaga, kadibna asaga uu geeriyooday. Kadib waxay ii sheegtay inay rabto inaan is aragno. Kadib waan ka cudur daartay oo waxaan u sheegay in la iga helay cudur halis ah oo HIV/AIDS ah. Gabadhii intay qososhay ayay igu dhahday waxaa tahay ruuxii iigu horeeyay. Waxaana igu ballan ah in rag badan oo sidaada oo kale ah in aan qaadsiiyo cudurkan halista ah. Kadib wiilkii wuxuu dhahay waan shalayay. Alla shalaydu xanuun badanaa. Wuxuu in badan ku calaacalay alla taleefanka maxaan ooga qabtay, maxaan ula xiriiray. Kadib wuxuu galay maalmihiisii ugu xumaa ee murugada, waayo wuxuu markii hore ahaa wiil dhisan oo nadiif ah. Qisadan waxay tusaale u tahay dadka inta badan aan wanaagsanayn ama wanaagga aan samaynaynin oo xumaanta la saaxiibka ah. Fadlan iska ilaali dhibaatooyinkan oo kale. Wax uusan raali ka ahayn Allah ha ku dhaqaaqin, adigoo caafimaadkaaga iyo jiritaankaaga noloshaada ka fikirayo.